بسم الله الرحمن الرحيم sidaynu la wada socono 16 bisha waxay shaqo weyn oo lagu dhisayay wadada maxkamadda dhinaceeda marta ay dhibaato u geysatay xarkaha dhulka hoostiisa maraa ee shirkadda Telesom dowlad hoose ka ahaan waxaanu marka ugu horeysa shirkadda weyne Telesom ka raali gelinaynaa ugana ducaynaynaa in iyada oo magaaladan la dhisayo khasaare ka soo gaadhay shacabkana waxaan u sheegaynaa in dhibaatada shirkadda gaadhay aanay ahayn cilad farsamo ee ay ku timi qalabka dowladda hoose oo shaqada dhismaheeda ku jira inay waxyeelo ka soo gaadhay xarkaha u hoos maray dhulka hoostiisa shirkadda Telesom saacado fara badan oo ciladii ay ku timi in dadku adeega ay isticmaalaan ayaa laga yaabaa dad fara badan inay si qaldan u turjumeen arrintaasi waxaan cadeynaynaa inay ahayd arrin ka timi qalabkeena dowladda hoose shacabkana waxaan u sheegaynaa in shirkadda dhibaatadu ku gaadhay iyada oo mid ka mid ah wadooyinka ku yaala magaaladeena aynu dhisayno sidaa markay tahay waxaynu ku khasbannahay inaynu shacbi ahaan iyo annagoo madaxdiinii ah inteenuba aynu raaligelin ka siino shirkadda xagga sharciga markaad eegto dhibtaa weyn ee gaadhay dowladda hoose ayay ka timi marka kol haddaynaan khasaaraha weyn ee gaadhay wax kale ka tari karahayn shacbi ahaan iyo annagoo madaxdiinii ah waxa fiican inaynu shirkadda uga ducayno kana raaligelino dhibta ay naga soo gaadhay dalkan iyo magaaladaniba way dhismayaan marka dhismaha la wadana way dhacdaa mararka qaarkood shaqaalaha macduudaad ka wada in dhibaato ka soo gaadho iyagoo shaqada ka shaqeynaya way dhacdaa xarkaha leyrka ama xarkaha dhulka hoostiisa mararka qaarkood inay dhibi gaadho laakiin waxa weeyaan dhibaatooyinkani waxay dhacayaan iyada oo markaa aynu hayno jidkii horumarka oo aynu doonayno magaaladeena inaynu dhisano shacabka habeenkaa dhibta weyne ay soo gaadhay shirkadda dad badan oo shacabka ka midi waxay u turjumayaan siyaalo qaldan shacabku waa inay ogaadaan in magaaladeena oo aynu dhisanayno in khasaarahaasi uu soo gaadhay shirkadda shacabkuna markay taasoo kale dhacdo waa inay shirkadda barbar istaagaan waa inay u dul yeeshaan u dulqaataan waxaanan ogahay shirkaddu inay dadaal badan ku bixisay annaguna waxaa leeyaale wixii aanu awoodnay ee taageero ah baanu siinay si shirkaddu markaasi ay u soo celiso adeegii kulanka aanu maanta qabanaynay wuxuu ku saabsan yahay oo keliya inaanu shacabka u cadayno in dhibtaasi ka timi qalabka dowladda hoose iyaga oo markaasi wadadaas dhisaya sidoo kalena aanu raaligelin dhammaystiran shirkadda siino shacabkana ka raaligelino adeegaa ka maqnaa saacadaha kooban ee sababtuna ay ahayd iyada oo shacabka loo dhisayo magaaladoodii anagoo ku hadlaynaa afka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda waxaan jecelahay inaan wax ka nidhaahno arrinka maayarku ka hadlay ee ah kala go-a ku yimid adeegii ay bixinaysa shirkadda Telesom company oo saacado kooban ka maqnaa hawada ama qayb ahaan ka maqnaydba waayo meelaha qaybaha qaar way shaqeynayeen qaybaha qaarna way maqnaayeen runtii sidaa uu maayarku sheegay ama uu cadeeyay baa ciladu waxay ka timid xadhigga raaligelinta maayarku bixiyay kolley waa arrin aan u arkayno mid meesha ku jira maadaama aanay shirkaddu iyadoo aanay ahayn mid technically ama farsamo ahaan xaggeeda uga dhacday laakiinse arrinkani oo ahaa arrin kale oo man-made ah oo shaqadii dowladda hoose ummadda u haysay ee wadada ku hagaajinaysay uu ku yimid waxaan leeyahay shirkadda Telesom arrintaasi kolley malaha adduun cidisiin mayse waxaanu leenahay dadweynuhu reputationkii iyo falcelintii iyo waxyaabaha ay ka bixiyeen ha u arkaan inaanay ahayn mid iyadoo ay samaysay laakiinse cilad ka timid dhinac saddexaad inay tahay oo dowladda hoose oo iyadana shaqo wanaagsan ummadda markaasi u haysay salaan dabadeed saaka ujeedadaan isugu nimi
meeyarkaa ka hadlay kulley anagu horaanu macaamiisheeda raaligelin u siinay habeen hore anagoo ka raaligelina muddadii koobnayd adeegyada shirkadda qaarkeed ay hawada ka maqnaayeen sababa jira awgood waxaanu ku faraxsannahay in tiimka dowladda hoose hawshaa markii hore ay gacantooda wax ku dhaceen inay si wanaagsan oo hagarla-aana noola shaqeeyeen waanu naga mahadnaqaynaa dowladda hoose oo ugu horeeyo maayarku xogeenkiisa iyo xogeeyaha dowladda hoose iyo dhammaan saraakiisha dowladda hoose muddadii aanu hawshaa ku jirnay sidii hagarla-aanta ahayd ay noola shaqeeyeen ay heeganka noola ahaayeen ilaa minidkii u dambeeyey iyagoo haddii ay qalab tahay iyo hadday shaqaalo tahay iyo hadday mas-uuliyiin tahayba barbarkayga taagnaa saaka markaa waxaan doonayaa inaan marka koowaad u mahadnaqo tiimka dowladda hoose ee maayarku hogaamiyo sidii howlkarnimada lahayd ee ay noola shaqeeyeen oo la-aantood ayna shaqadaasi waqti kooban noogu dhammaateen dabcan damagekii wuu dhacay laakiin in waqti kooban lagu xaliyo waxaa sabab u ahaa wada shaqayntii iyo taageeradii ay noo muujiyeen iyo sidii noo garab istaageen tiimka dowladda hoose marka waan u mahadnaqayaa si guud baan ugu mahadnaqayaa si gaaraan ugu mahadnaqayaa maayarka iyo guddiga fulinta ee dowladda hoose intaba waa iga mahadnaq tan labaadna macaamiishayda waxaanu sheegaynaa in adeegyadii si aanu habeen horeba idiin sheegnay sidooda idinku shaqaynayaan markastana aanu u taagannahay inaanu adeegyada idiin joogtayno oonu idin tayeyno waxaan sidoo kale u mahadnaqaya macaamiishayada dulqaadkii iyo deganaanshihii iyo aaminaaddii ay muujiyeen muddadii ay hawshaasi socotay waana waxaan uga baranay macmiilka iyaga oo mar kasta oo hawli timaado sida wanaagsan ee ay noo garab istaagaan ee ay mataqaanaayeen moralka iyaga u support gareeyaan waayo marka mushkilada dhacdo haddii moral supportka laga xumeeyo oo buuq iyo qayla timaado waxaa laga yaabaa inaan shaqada ku soconin macaamiisha aad baan ugu mahadnaqaynaa waa lafdhabarteeda waa xididadaanu ku taaganayno biyaha ku cabno aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya iyagana waxaana leeyahay hawshaasi way naga fushay aad iyo aad bayna u mahadsan yihiin tiimka dowladda hoose ee maayarku hogaaminayaana inay nala qaataan in hawshaasi ay sida ugu wanaagsan noola qabtaan waanan u mahadnaqaynaa dee raaligelintuna waxay ka mid tahay intaa macaamiisheedaanu raaligelin beeguna macaamiisha u dirayaan macaamiishuna waxay ka mid tahay dadka magaalada loo qurxinayay ee loo wanaajinayay ee shaqada loo qabanayay marka dhammaanteen waa hawl laynoo qabanayay hawshuna marka laynoo qabanayo waxaa laga yaabaa dee shay kasta inuu mararka qaar la yimaado waxoogaa dhibaataa laakiin alxamdulilah mar haddaynu kasoo kabannay waqti kooban aynu kusoo kabannay mar labaad iyo mar saddexaad waan u mahadnaqayaa madaxda dowladda hoose iyo shaqaalahoodaba sidoo kale waxaan u mahadnaqay macaamiishayada waxaan u mahadnaqay wasaaradda teknolojiyadda iyo isgaarsiinta oo waqtiga iyaguna hawshaan wadnay mar kasta nagu raad joogay oo na garab taagnaa oo moral ahaan iyo talo ahaan iyo tusaale ahaan intaba noo garab taagnaa wasiirka iyo agaasimayaashiisa iyo dhammaanba sidaa iyaguna noo garab taagnaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shacabka iyagana mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahadnaqaynaa siday noola cadifadoodeen. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.